maalintii shalay dabley hubaysan ayaa jidgooyo u galay badhasaabka gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi oo helinayo taliyaha ciidanka booliska gobolka Togdheer Cali Gaadayare waxaanay dableydaasi rasaas u yihiin wafdida uu hogaaminayay badhasaabka gobolka Togdheer weerarkan lagu qaaday mas'uuliyiinta gobolka Togdheer ayaa ka dambeeyay dhul deegaanaysi cusub oo laga bilaabay duleedka deegaanka Cali Saahid oo hoostaga gobolkan Togdheer haddaba badhasaab ku-xigeenka gobolka Togdheer Maxamed Cabdilaahi Nafaqo ayaa ka hadlay khasaaraha ka dhashay weerarkaasi isagoona tibaaxay inaanay jirin wax khasaare nafeed ah balse ay jiraan waxyeello xooggan oo la soo gaarsiiyay gaadiidka ay wateen badhasaabka iyo taliyaha ciidanka booliska Cali Gaadayare waana kan badhasaabka oo ka hadlay arrintaasi in yaroon oo shalay dhacdadii yarayd oo runtii aad loo bumbuuniyay iyadana iminka hawshaasi way dhamaatay maamulkii gobolka iyo taliyada qaybta iyo maxay hayteenay odayaashii deegaanka intuba arrinkii si fiican ay u socotaa afkarna insha Allah taala waa laga gaari doonaa saacadaha soo socda way jirtaa rasaas maxay hayteenay niman dhalinyaro oo wax ma garata ay maxay hayteenay ay ku rideen gudoomiyaha iyo taliyaha qaybta iyadana wax weyn runtii oo iminka la sheegi kara ma gaarin marka iyadana intaasaan insha Allah taala aan la wadaagaysa haddaba maxaa xukuumadda Soomaaliland uga meel yaala khilaafaadka ka dhashay deegaamaysiga cusub kaas oo beriyihii u dambeeyay ku soo badanayay gobolka Togdheer su'aashaasi waxa ka jawaabaya badhasaab ku-xigeenka gobolka Togdheer waxa u dhimaysa dawladnimada ee sharciga dawladda ayaa wax kasta ka sareeya cid walba burcabadeed ama meel gasha ama maxay tahay burcaduleed ha ahaato ama diciis abaabushay wax ma garataha noqotay deegaan buuxda ayaa wax laga qabanaya biidin lahayd Cabdiraxmaan Trike telefishinka Horyaale magaalada Burco